Maka ayagoo mar labaad cimraysan doona. soo dhawaada barnaamijkan aan ugu talagalnay dhalinta Soomaaliyeed ahna barnaamij wacyi gelin hadaba siday qaarkiinba ay ula socdeen horay waxa sanad walba ka baxa wadankan Ingiriiska dhalin aad u fara badan kuwaasi oo loo qaado wadanka Saudi Arabia dadkaasi oo isugu jira dhalinyaro iyo faamilo waxayna dhamaantooda baxaan waqtiga xilliga iskoolka loo xiro ee fasaxa marka la galo waxay dadkani u baxaan wadanka Saudi Arabia dhulka barakaysan si ay u soo gutaan cimradooda sanadkaasi ayna soo arkaan goobihii uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam u maray iyo in la soo kordhisto aqoonta diineed ayagoo ay waliba la socdaan culamaa diin iyo arday ka dhigata jaamacadaha wadankaasi Saudi Arabia hadaba safarkeenu wuxuu ka bilowday magaalada barakaysan ee Makkah si aanu u soo cimraysano inta aanu cimraysanayna waxa ay tagayaan dhalintan Soomaaliyeed ee ka yimid wadanka Ingiriiska goobo aad u fara badan oo goobahaasna ay ka mid yihiin goobaha lagu soo xajiyo sida Buurta Carafa iyo Musdalifa iyo Mina ayagoo goobahaasi marayana walibana lagu siinayo casharo kala duwan waxaana la barayaa sida loo guto xajka iyo sababta xajka loo guto safarkan intay dhalinyarada ku jiraan waxa la socda dhalinyaro Soomaaliyeed oo diinta ka barata jaamacadaha wadanka Saudi Arabia Makkah iyo Madiina hadaba intay dhalintani goobtaasi joogeen ayaa waxa la tusay sida ay muhiim u tahay diinta in lagu dhaqmo waxayna culimada iyo macallimiinta la socday ardada Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka yimaaday wadankan Ingiriiska waxay ku dadaalayeen sida ay inta ay ku sugan yihiin Makkah ay u baran lahaayeen diinta una qaadan lahaayeen sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam after Dhuhr you must be inside the border area inside not outside okay Masjid al-Namra see on your right hand side okay big masjid and before it is a dry river called Wadi Urana. That's where the Prophet ﷺ stayed before Dhuhr. Okay, they make tents and he stayed before Dhuhr, and after Dhuhr he went inside the Arafah and he stand there making dua and Allah subhanahu wa ta'ala. Somebody tell me the best dua of there in Arafah? dhalinyaradan ka yimaaday wadanka Ingiriiska dhamaantoodba waxay dareemayeen dareemayaal aad u wanaagsan kuwaasi oo aad iyo aad ugu faraxsan inay maanta marayaan Makkah iyo goobihii uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam u maray hadaba intay dhalintan caruurtan Soomaaliyeed ee ka yimaaday wadanka Ingiriiska ku sugnaayeen magaalada barakaysan ee Makkah ayaa waxa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka dhigata jaamacadaha wadanka Saudi Arabia iyo macallimiintii la socday ardayda ay barayeen Quraanka iyo ahadiista Nabiga sallallahu alayhi wasallam dhalintan ayaa waxa Quraanka la baraa salaada subax markay tukadaan kadib kuwaasoo loo qaado dhinaca masaajidka xaramka ee Makkah si ay Quraankoodana u bartaan salaada subax kadib sidoo kale dhalintan Soomaaliyeed ee ka yimaaday wadankan Ingiriiska ayaa waxa qaarkoodna loo qaadaa salaada casr kadib
masjidyada kale ee ku yaala magaalada maka ee barakaysan ayagoo lagu barayo axaadiista iyo kitaabada kala duwan. haddaba waa kan waalid la socday caruurtiisa oo ka hadlaya dareenkiisa inta uu ku sugnaa buurta Carafa. ila taagan mid kamida dadka soo cumraystay waan doonayna su'aasha koobaad weydiiyo marka hore noo sheeg magacaaga saddexan. magacayga saddexan waxa weeye Maxamed Qawdan Axmed yoolac baan ku naanaysteedu weeye waxaan ka yimid London gaar ahaan xaafadda Village ayaan ka yimid. waayahay Mr. Yowlac bal waxaad noo sheegtaa waxa aad markii hore ka aaminsanayd iyo markii aad meeshan timi sida ay kula muuqato xaramkii iyo kacbadii Carafoodii marka joogto iyo meelo badan oo soo aragtay. ma sha Allah alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa maalin qiimo leh waa maalin aad u sharaf badan waa maalin igu weyn waa maalin aan markii hore taariikhdeeda aanan la soconin oo aan wax taariikh ka haysanin laakiin maanta ma sha Allah aan aad iyo aad u qiimeynayo oo qiimaheeda ila leh aadna ila weyn oo aanan ilaabi doonin inta noolahay aan jecelahay inaan dib ugu soo noqon doono insha Allah bismillaahi kariim. waayahay Mr. Yowlac waxa kula socday familygaaga qaar kamida marka dib u wareysatay maxay dareemayaan TV-yada markii ka arki jireen iyo imika live u yimaadeen muxuu yahay difference ka u dhaxeeya talow. ma sha Allah alxamdulilaahi rabbil caalamiin caruurtaydu baa ila socotay caruurtaydu wali waxay ka dhaadhacsan ama ay aaminsan yihiin oo aan aad iyo aad ugu qiiraysan yihiin halkan maanta ay joogaan ee qiimaha badan ee sharafta badan ee beedkii Ilaahay iyagoo hore wax taariikh uga haysan ama aan la soconin laakiin TV-yada ka daawan jiray maanta waxay u tahay maalin qiimo leh maalin qaaya leh maalin aad u qiimo badan oo ku weyn maskaxdooda aanay ilaabi doonin taariikhda intay nool yihiin ugana sheekayn doonaan dadkii ay ka yimaadeen iyo caruurihii kale. waxaa maalmo kadib markii ay cimraystaan dhalintan ay u kacaytimeen dhinacaasi iyo Madiina si ay u soo arkaan masjidka nabiga iyo goobtii uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ku duugnaa iyo goobaha fara badan ee loo dalxiis tago lana tago si loo soo arko oo ay ka mid tahay buurta Uhud iyo masjidka Qiblatayn iyo goobtii uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam adeerkiisa ku duugnaa Hamza iyo asxaabtii goobtii lagu duugay dagaalkii Uhud kadib.